daawadayaal kusoo dhawaada waraysi aanu la yeelanayno fanaanada fartuun axmed sahal fartuun brimo oo waayahan dhoweyd maqnayd balse soo saartay dhowaan hees qabsatay meel walba oo la hadal hayay fartuun ayaa waayahan ka maqnayd fanka in muddo ah laakiin hadda dib ugu soo noqotay wacdarana ka dhigtay dad fara badan oo soomaaliyana ay hadal hayaan fartuun heese fara badan ayay leedahay laakiin intaanan fankii sugaanta u gelin su'aalo dhowraan jeclay inaad jeceshiin inaad ogaataan ayaanu weydiin doonaa bal marka horeysa fartuun brimo aan soo dhaweeyo fartuun soo dhawow waa dhawaa cabdixafiid walaal sharaf iyo karaamay noo tahay inaad caawa nala joogtid ood waqti nala qaadanaysid allah ku karaameeyo fartuunay aan kugu bilaabee marka hore waayahan xagee ku maqlay walaale waayahan wallaahi waxa waaye waa u nasanayno waa fiirinayo joogan fiirinayo waxaas lahaa bal jooga la qabso maxaa kuu soo baxay markaa cabbaar jawiga fiirisay oo ay laysay maxaa kuu soo baxay sahankaagii wallaahi waagii hore waxaan raadin jiray heese tayo leh oo mataqaanaa qaarkood maaragtay ay ka hadlayaan dee dhaqankeena ama hawdka ama waxyaalahaas laakiin waan ogaaday aysan soconaynin marka xoogaa waan u fakeraya waxaan islaa bal wax dhallinyaradan dambe iyo jiilka iyo bal adduunyada maaragtay yaa ka soconaya waa gartay waxaan jeclahay inaan ku weydiiyo dhowr su'aaloodoo kooban inta aanan dulucda barnaamijkeena u gelin iyo fankaagii sugaantaada fartuunay haddii lagu yidhaahdo haatanna waa la socdaa inaad single tahay dhan wari nambarkaaga shaashadda kusoo qori mayno waan ogahay inuu kusoo garaacayo lagu wareerinayo waxaan jeclahay inaan ku weydiiyo haddii lagu yidhaahdo nin qani ah oo aan aad kuu jeclayn laakiin adduun ilaahay u dhiibay iyo nin faqiira laakiin si qayro caadiya kuu jecloo raba inuu nafta kuaga dhigo keebaa dooran lahayd anigu waxaan dooran lahaa midka aadka ii jecel kaas nafta kor dhigayo kaas bar anuu dooran lahaa waa gartay hadda ninkaas waa faqri noloshu waa kadeed furitaanku qarku iska saarmi karaa maxaad ka leedahay arrintaas hadduu furan hadduu absaha rabay oo lugtaan sii furayaa laakiin anigu kulley weligeena nin xoola le maba guursanba always ya inkastoo aad ugu daalay laakiin haddana bini'aadanimada baan fiirinaya ma garatay oo maxaad u guursan weyday nairobi lacagtii adduunka taale nin ay maxaa lahaa malaayiin dollara wado intaad nairobi joogtay gabadha dhallinyarada tahay wallaahi aniga waxaan jeclahay in horta waxaan ahay naag aad u masir badan baan ahay marka waxaan jeclay nin aad ii dhegeystaa oo aad ii ixtiraama oo dee maaragtay marka xoogaa nimanka lacagta badan waxa lagu sheegay way naaga badan yihiin marka midaan anugu iska dee aad hadalkayga dhegeysto oo dee mar walba iska arko waxaan jeclaa mar walbana agaarkay ka arko ku lacagtana way dhoof badan yihiin baa layiri mafahanti marka niba arrimahaas inuu lugta furaa ka baqaysaa diyaaradda ka raaca habba hadhowti marka xoogaa ma garanayo waxaan iska jeclaa anugu ruuxaan iska arkayo dee maaragtay inkastoo calafkuna dee iska jiro qof walbuu jecel yahay qof xoolaha haysta I like it because waan daalay waan ogaaday realityga way fiican tahay naagtu inay haysato runtii nin u shaqeeya oo ay ku nasato marka hadda daas waa abaabada hore dhaniyo faqri waa soo xiri laakiin haddaad tiraahdo nin xoolo leh iyo nin faqri leh haddaan yidhahdo nin xoolo laan raacayaa xoogay jawaabtan ku qurux badna laakiin dee caloosheeda la baan waxaan iska jeclay mid hadday nasiyo baasha yara haysta inaan waa gartay si fiican baa kuu afgartay fariintaas waa tagtay waxaan kaloo rabay inaan ku weydiiye waxaa lagugu dacaayadeeyaa fartuun waxay jeceshahay inay guursato markasta aroostaba dhalinyaro ka yaryar oo wiilasha yaryar hadda soo kacayo organiga iyo enerjiga miirana maxaa arrintaas ka jira fartuune wallaahi waxaa la fuli xantiis ma mogaa layiri arrintaas aad bay ii soo gaartay waan maqlay dhowr jeer iyagoo dhahaya wiilasha yararka ay ka qaraabataa ay jeceshahay warniyo bahalkan baa dee yara dhibaya ilaahay amarkiisa ku dhahda arrintaas iyada okay waxaa la yiri fuli xantiisa ma mogaa layiri waan maqlay dhowr jeer iyagoo dee maaragtay laygu xamanayo mar walba yiraahdaan wiilasha yararka ay guursataa horta aniga waxaa horta nin iga yar weligii ma guursan maxaa la yirahdaa mid iga yar mid ila eg
iyo mid iga weynba waan guursaday marka horta guurku waa iska calaf laakiin hadda waxaan ballan ku qaaday maadaama iga badbadiyeen oo yiraahdaan mar walba wiil yar bay guursataa wiilasha yarka dhaylada bay sida ay dhahan maarta horta haddaan calaf iga helin waxaan jeclaa hadda mid aad iga yaro weliba wiilkayga ka sii yar inuu guursado saan ku dhahay fartuunay waa soo dhigatay wiilkayga ka yar ah xataa inuu ka weyn yahay xataa mar inuu ka yar yahay baan rabaa sababtaa naftiba ii keenantay si igu hayeen wiilasha yarkaa bay jeceshaa dhaylada bay gaataa dee walaa nabiibyada bay iga badiyeen ma fahantay marka waa mar horta waa inaan ka dhabeeya haddaan doono in yaraan iskala joogay marka wiilkaaga da'diisa noo sheeg si dadka ragga aan u kala saarno oo in badan oo ka mid aan dheeraano liiska idigu kuma jirtaan aniga horta wiilkayga 16 sanaan ku dhalay waana 27 jir isku dhufso marka waa gartay marka 27 ninka ka weyn arjigooda lama qabanayo wey 25 26 wixii la sheegaya meesha hadduu u bato waa inuu war hadduu cirka galo waa inuu 30 ka rag u dhaafin ma garatay waa halkaas waxa weeye waxaan ugu daleeyaa dadka oo wiilasha yarka dusha iga saarayo waa la leeyahay hadda iga agraadsi wiil yar fartuun brimo waa maqlaysaan arji ayay dirtay haddii aad ka weyn tahay 27 waxa weeye warkaagu ma soconayo tacanka waa ku dhacday hayse soo lugoyn waa gartay fartuunay waxaan kaloo rabay inaan ku weydiiyo haddii aanu eegno waxyaalaha kaloo aan jeclaan wax kaa weydiiyo waxaa jirtay show Nairobi hadda kor aragtay inaan ku qabsatay oo amni darro loo qaban waayo maxaa dhacay showgaas waxa weeyaan kulli waxay iyagu ku sheegeen waxay yiraahdeen amnigiisii markii ugu horeysana showga aan ka dhigay Nairobi aad baa laygu soo qalay maasha Allah aad iyo aad marka waxay mar labaadkii bay ahayd oo aan rabay inaan show ka dhigto marka waxay yiraahdeen maalin ciido fiicanna way ahayd maasha Allah waxay dhaheen marka amnigii baa la sugi karin marka magaalada dhan baa gariiraysa marka sidaas la ajligeeda maba dhigi karto showba marka Nairobi dadkii baa waxay rabeen in showga ka soo qayb galaan ummadda faraha ka badatay dadkii miyaa faraha ka badatay saas awgeed miyaa loo joojiyay amni darro ayagu kulli saas excuse ka dhigtay waxay dhaheen macnaha maarta amnigii baan la sugi karin wax saasa sidaasay maarta holkii igaga marka saas u baajiyaa waa gartay waxaa jirtay hees aad leedahay oo caan baxday heeso fara badan baa leedahay ma garan caashaqan igalay garka iyo saas igu galgalaa ku jirtay eray ahayd bal noogu waxa ka xasuustay waxay ku timid wallaahi heestaasi waxa ii dhiibay ilaahu naxariistay awaankii sangub baa ii dhiibay maarta markii riwaayadda qabaya wan aan jilaynay waliba anigu markaa kamaana helin waxaan lahaa waxaan adeer hees jilicsan waaye saan waaye marka wuxuu yidhi waxaan ballankaa qaaday heestaasa ka tegin in ay noqoto hees raad reeb keenta in fanaanin badanna ay gadaalkaaga ay ku koobiyayaan marka way dhacday marka laakiin aniga wax qisa aniga markaas iga imaaday ma ahayn laxankana asagaa lahaa mirahana asaga iska lahaa abwaanka ii dhiibay codkaagii dahabka ah bal laga xasuusi waxa ka xasuustay ma gaaran caashaqaani galay ma gaaran goortuu i helay ma gaaran guyaal baan kala maqnayn oo waqtigu gaabin ayay goor ma timid waan ku rabaye garka iyo naftayda ku gama sidaa doonta ugu galgaalo oo sidaa doonta ugu gargaalo feel free waa ka dhacday waa gartay allah u naxariista abwaankaas sangub ilaahay jannadiisa ha ka waraabiyo shakhsi culays la ayuu ahaa waa gartay waxa kaloo jira heeso fara badan oo kaloo aad qaadid oo ay ka mid tahay naf ku jecel ay ka mid tahay iyo weliba maxaa guurka aniga ii diiday oo kale saas oo kale heeso fara badan baa jiray see wuxuu jireen arrimahaas maxay ku yimaadeen wallaahi naf ku jecel ma waxaa ka wadaa heestii Sahar Axmed baan u malaynayaa anigu taas hadee Sahar Axmed baa iska lahayd waan iska daba raacay un laakiin hubaal aragtidaadii mid la yiraahdo baa jirto anigu hubaal aragtidaadii baan leeyahay sidaa sheegtay maxaa guurka iga xirana Soomaalida horta maxaa guurka iga xiray waxa u yaqaanaa inay jacayl tahay balse heestaasi waxay hees wadani ah
waxay ahayd heestaas markii ugu horeysana waxaa wada qaadnay talantaars bay weliba ahayd aniga iyo kuushan baa wada qaadnay allahu naxariistee meel waxaan ka qaadnay Ethiopia adiga olo neefta waagaas jirtay baan aan u qaadnay marka waxay ahayd maxaa guurka iga xiray yacni waxay ka qisada riwaayadda markaas lagu dhigay waxay ahayd gabdhihii yacni anagoo quruxdaan leh oo sidaan ah maxaa guurka iga xiray marka asaguna wuxuu igu jawaabayay adigoo quruxdaas leh oo sidaas leh waxa guurka ka xiray meles iyo waxba maaragtay saasa wiilashii baabashmiya ma aqaan samtilada riwaayada ahayd macnaha maxaa guurka iga xir waxa waaye yacni Nairobi Kenya maanta waa aragtay heerka gaareen yacni wadamada dariska sida Ethiopia meesha marayso macnaha maxaa Soomaaliya hadlayso kale oo dhahaysa maxaa aniga guurka iga xiray maxaa khayraadkay saasuu dadku leeyahay anoo xoolo badan iyo barwaaqo iyo bad iyo adduunyo leh maxaa haddana khayrka iga reebay balse dumarku waxay u qaateen dee dadku sida kaleeto inay jacayl tahay marka anna chance qof i weydiiya ma adiga unbaa maanta i weydiiya waxaa kaloo jirta hees kale oo la yiraahdo yaa lagaa garan maxay ujeedadeeda hay'ada yaa lagaa garan hees yaa lagaa garan adiga yaa lagaa dareemin heestasna wallahi iyadana qisay leedahay dadku waxay u maleeyaan anigu inaan heestas aniga aan maarta qaaday oo weliba dee heestas waxaan oran karaa gurigeygii ugu dambeeyey asagoo ku burburay heestas ku burburay sababtoo waan ka dhaadhicin waayo waniyo heestan anay adiga kuma qaadin ma fahantay marka heestaasi waxa weeyaan gabar Canada joogtay ayaa waxay igu tiri ninbaa adigu ii imaa gabadhu maaqan 9 caruur iyo 10 caruur waxbay lahayd marka nin dhowr ilmood niman badan ay soo kala dhashay marka ninbaa u yimid wuxuu ku yiri ilaa inaan ku guursadaan doonayaa weliba xoolaan kaa bixinayaa aabaha baan kaa doonanayaa maxaa la yiraahdaa magaalada Soomaaliya magaalo kamid ah joogo garoowe joogo jaclayl igu dhahay markaas aabahaybu waxay tiri iga doontay markuu aabahay iga doontay aabahay wuu yaabo wuxuu yiri maxay tahay gabadheedan iyo ma ogtahay in intaas caruur leedahay ma ogtahay intaas inay soo furtay waa maxay gabadhan sida gabar yar adiga soo doonanaysid markaas wuxuu yiri maya ilaa adigu waxba kaama gelin gabadhaada si waxa doontana sheego marka aduu sidii bay gabadhii wiilkii ninkii ku guursatay marka waxay tiri ninkii gadaal waxaan ka soo ogaaday tiri inuu cudurka xun uu qabo ilaahay naga najeeye marka gabadhii cancer miya hebel miya dhahan adiga wax saas qabayay dhahday markaasaan soo ogaaday tir gadaal laakiin cirbaduu qaadanayay tiri oo dawu qaadanayo macnaha muusan faafin waa sida iyadu igu tiri waniga igu dhicinin bay tiri alxamdulillah marka dhakhtarkii baan aaday waan soo ogaaday marka ninkii bay macnaha heesta marka yar baa u sameeyay gurigayga imaan jiray annaguna waa la sii haabaynay halkii baan u laxanka ku saaray lacag badan bay ku bixisay aniga dee maaragtay dharkii wixii dee qarashkii muusigii wixii ku baxay oo dhan ayay iyaduna bixisay sidaasaan aan heestaas gabadhaasaa odaygeeda markaas u samaysay saas ani heestaa u qaaday aniga waxay qusayay ma ahayn yacni haddaad isleheed xoola miya ma aqaan haddaad isleheed saas miya aniga cudurka ku rid waxba igamaada dhimin laakiin adiga yaa lagaa dareemin oo adiga iyo cudurku kaa soo bixin camal something like that waa gartay waxaad tiri gurikaygii u dambeeyaa ku burburay sababaysatay arrintaas nooga dhacbalad waxa weeyaan heestii bay soo qaateen meel bay soo galiyeen miidiyaha YouTube-yada soo galiyeen Fartuun Birimo waxay u qaaday heestan odageeda u qaaday adiga laga dareen Petri taas marka saasoo tahay mararkii la ii garaacayay oo intaanan heesta soo saarin Nairobi baan tagay habeenna kamid ah dhijino laxanka si fiican ii xadfidsi kabanka iigu garaac manager gitaarku u garaaca kaba organkan xoogaa yar buu garaaca marka labadaba uu garaaca laakiin kuma uu shaqaysto marka waxaan ku yiri how maxaa leeyahay ii tuntu baa dhijirsan codkayga ugu sii fadhiisto wuu ogaaday qisada waan ugu sheekay haddana media waa ka xoog batay meel walba maro oo naagta hees bay ku soo qaaday saan wuu rumaystay marka dhowr jib waxaan ku rinayo heesta anigu adiga kumaana qaadinin wuu aqbali waayay marka halkaas waxaan maleynayaa damage-kii iyo muranka ka bilowdaba sidii baa man ku sii dabadii ma guursatay yaa guurka dabadii ma guursatay ma guursanin wiilkii 25 jirkaa sugaysaa 25 jirkii baa sugaya iyo ninkii nasin lahaa baan sugayaa way adagtahay 25 jir ku nasiyay way adagtahay oo lacag fara badan la marka aan maleynayaa xoogaa yar inaad gorgortan geli doontid hadalka waxaan ku yiri 25 jirkii iyo ninkii nasin lahaa baan sugayaa baan ku yiri
والله سو سعدا ها يعني كان نسين لهانا ومدك كوين فهمت ninka waa shilaatu jirkan waa kan ku sheeg labadii waa sugayaan ma gartan waa gartay labada waa ku soo socdaan waa gartay haddii aan ku weydiiyo wixii kuugu yaabka badnaa ku soo mara fartuun axmedey maxaad oran lahayd aniga wixii igu yaabka badnaa soo mara walaa aniga waxaa horta igu yaabka badnaa soo mara waxa weeye yaab iguma badnayn laakiin aan xoogaa la yaabay waxay ahayd gaalkacyo markaan tegey waa kow gaalkacyo magaaladii aan ku dhashay weeyaan xuduntayda baa taala markii laygu yiri show kama dhigist oo 3 show laga kansalay hortaasaa igu yaabka badneed oo sababtu maxay ahayd waxay yiraahdeen naagtaani dadkii naga haligaysaa naagtaani saan weeye wallahi niyow ilaa haddeertaan dadka un bay naga haligaysaa hadalkaasaan aan maqlay ma garatay dadkii xogaa siirada diyaarinaya de maaragtay marka wixii ka sirti kasii dambaysa garan maayo laakiin 3 show bay iga kansaleen marka aad baan ula yaabay aad baan haddana fanaaniin aniga iga horreysoo yaryaroo tegey baan maqlay kabacdina fanaaniin way tagan kulley waddada adigu waxay rabtaba ha aatee 3 show marka laga kansalay anu markii dambe showgii waan dhigay iyadoo dee xoogaa dhibaata ay dhacday ma garatay oo wiilal dhashay baa dee meeshii ka dhiidhiyey oo yiri dee gabadheenuba guur ma laha dee walaasheenu meeshan ku dhalatay show ka dhigan weysay marka ana hortaasaa igu yaab badneed magaalada aa ku dhalatay yani waagayga hor waxaan dhihi jiray alla magaaladeeda markaan tago xataa jidka kuu maraya kuu soo leexanayo saas weye aad baan ugu hanweynaa marka ka yaabay waa gartay wixii kuugu naxdinta badnaa ku soo mara maxay ahayd intaad xasuusatid ana naxdinta badnaa والله وحي igu naxdinta badnaa oo isoo mar waxay ahayd maalin maalmaha kamid ah aniga meel oo banooniga lagu ciyaaro joogo oo aniga iyo eedaalaha naxariis waxa joogta dalaysa joogtay jubba joogay fanaaniin kale taa joogo laga heesay barxad ah oo de anoo aad isku happy iska oo de maarta banooniga fiirsanayo baa telefoon ii soo dhacay private ah ilaa hadda private waa nacabaha markaas waxaa la igu yiri maxaa la wiilkaagii baa maaragtay askar baa nahay inankaagii baan xirnay oo ronga place baan ku xirnay marka asigu markaa wuu yaraa marka waan naxay adiga waxay ahayd 2010kii dhammaan 2011kii ahayd aad baan u naxay maanta sababtii ugu naxday badneed markiina waa anigii dee inankaygii markiiba adigu waxay ahayd meel yaroo ciyaal xaafaday joogeen markiiba waan la dhoofo anigii saasan afrika aan ula aaday ilmaha ula maqnaa marka inaad carruurta ka badbaadsatid baad go'aankaagu ahaa oo safarkaas dheer afrika u gashay waxaan ogahay inaad ku dadaashay inaad diinta bartid oo ay maaragtay meel ka soo baxeen oo maasha allah 5 ciyaal haystaatay allah ku barakeeyo waxa lagu faano weeye aan kula kaftamay hadda telefoonada private-ka ma qabataa mise ma qabatid may ma qabto waan nacabahay laakiin marba haddii carruur banaanka ka aadan waayo hadda aniga alxamdulilah quraanka ii soo barteen kuwa yarka ayagoo 4 jir 5 jiraan ka xiliyay hadda waa soo celiyey waa 17 iyo 18 hadda tii yareedoo 5 sano jirta unba xagga iga jirta ayadana rabaa ilaa 10 sano igu gaarto quraanka ii soo xafido marka mar walba ilmaad leedahay oo xataa kii weynaayo macnaa maasha allah hadda waa ii joogaa gabadheeda joogta marka telefoon private lagu soo wac waxaad isleedahay inuu ciyaalkii ma lagaa soo wacaya laakiin ma jecli iska ilaalin waxaan ku dhahaa telefoonkaas qabo waxaa laga yaabaa wiilkii 25 jirka ahaa iyo ninkii ku nasin lahaa midkood inuu yahay marka ma qabaad leedahay waxaan ku leeyahay telefoonadaas private-ka qabo ma kuwaas private soo wacayana umaleyna taasay ku soo wacay kuwaas ogahay kula kaftama waxaan rabaa inaan Fortune ku weydiiyo fanaaniintii hore iyo kuwan dambe iyo dhalinyaro fara badan baa soo baxday dadku markay ay xoogaa yara ay famous noqdaan caan noqdaan magacooda la hayo waxaa dhacda in ay mararka qaarkood mas-uuliyaddaas iyo dadku siday jacaylka u qabaan inay hayn kari waayaan oo qof kale ay iska dhigaan see u aragtay arrimahaas wallaahi niyo arrimahaas waxaa moodaaba inaad ogeedba ishaa ka turtay way dhacdaa waxaa la yidhi horta qofka bini'aadanka sida magac lagu helo way dhowdahay magaca yaaba siiro isinaad ku heshid laakiin sida aad ku haysatid magaca way adag tahay marka waan arkay dhalinyaro badan oo
macnaha maaragtay marka hal hees u soo baxdo ama laba hees u soo baxdo anigaasaaba xataa arkaba qaarkood yani adigayba ku yasayanba xalleeyo maxay sheegay farto bir maaha marka laga taa farto bir ma qasana dhigaysa yara farto bir ma yaa she's very all the fashion way ma fahamtay ya oo hayn waaye xamili waaye maaragtay magaca yaray heleen ama si xitaa mararka qaarkood way dhacday waan arkay anigoo ingiriiska xitaa london taasi xitaa mar u dhacday fanaaniin anigu dee kabacdi markaan yurub iyo ka noqday oo ilaa waagi hore aan imaan jiray kabacdi mar dhow soo baxay aduu 10 sano fanaaniin ama ka yar ah oo waxaan arkay showyo xataa anoo show soo dhigsaday oo ay 2000 ugu dambeysay iga soo daba dhigsaday xitaa waa arkay yani waa ogaay waa laga qorsanaya sababtoo ah anaga fanaaniintii horeeto waan u adeegi jirnay oo waa beri oo waan xasuustaa mar walba waxay ana iidishay jiray ee adaa naga yar waxaa noo soo qaba adaa naga yar markaasan ka xanaaqi jiray yaraanta ana firkii waxaan dhihi jiray gadaa maxaa wax bay ugu tartaan yaraanta marbaad u shalayn doontaa oo wixiisa doontaan bay dhihi jireen marka aad baan ugu adeegi jirnay wax kasta gifta baan u keeni jirnay even fanaaniintan dhaxaxa anyone oo hadda maanta xitaa fanaan soo baxay ani sharciga iyo yaala magaalada hadduu igu yimaado waa laba mid hadduu isoo wacana kaarbid cas baan u goglay waan u tegayaa hadduu isoo wacina dee waxa dhib uma geysanayay halkaa baan ka marayaa marka ogaay waa run waa gobonnimo saasa gaaraba waxaan rabay kale inaan ku weydiiyo waayahan dambe waxaa jira buuq inta badan dadka soomaalida social media ay haystaan see u aragtaa inaan la isku dheginin oo la is ixtiraamo oo la isgarab galo oo la isqadariyo laakiin aan kalarka la isku wada dheginin see arrimahaas ola jaan qaada adigu wallaahi kulley anigu aan reera miidiyaha ma jecel inaan ka hadlo waxna xataa ma qoro waxba kuma darsado haddaa xataa sometimes aad tirahdid maarta waa saxsantiin iyo waa qaldantiin labadaba xataa dhibaa kugu soo noqonayo feedbacka kugu soo noqonayo marka ani xaggayga iska aamusaa laga qaataa because aniga kolley wax qurux badan ma ahan inaysa qurxinayna de annagu dhan waa u jeednaa yaa in laysa ixtiraamo in laysa sharfo inaan si xun wax lagu raadin maaragtay aan fiyuus lagu raadin in sharafta waxaan kaamira waaye waxaan taariikh waaye awlaad baa leedahay awlaadaada awlaad bay sii dhalaysaa in qof islaanaha tahay waxaa fiican haddii wax kaa haraa in taariikh fiican ay kaa harto marka aniga kula hadla mararka qaarko xitaa koomanka markii la caynayo waxyaalaha qaar markaan arko wallahi uma jawaabo because ya waa aad waa gartay muddaad ka maqnayd fanka waa xabsahan baad ku maqnayd oo adiga sheegay waa soo rogaal celisay dhulkii iyo cirkii iyo meel walbaad qabsatay waxaad ka soo tuurtay bahal dabka ka soo tuurtay dhagtaas ku haysa bal iga dabagee ayada wallahi heestaas dhagdhag waa arrimuhu waa dhagdhag weeyaan fahanti xalku waa naga dabagee anagu ilan ma ogin wixii daawadayaashu waxay rabaan ogaadaan waxa fartuun ay saas la leedahay waxbay ogtahay والله wax gooniya hadda xambaarsan tahay malahan laakiin waa hees oo erayadeedan anigu maaragtay xoogaa iska suuqayn waa wax loo baahan yahay arrimuhu iska dhagdhag aniga xaggeygana ma sha Allah dhinac walba wax dhibaa ma jiraan waa dhagdhag baan u arkaa horta dhagdhag weeyaan fahanti marka heesa laakiin saameyn gooni ah aniga ii leedahay wallahi runtii ma jirto laakiin xaalku waxa weeyaan heesa badan baa soo wadaa iyadu waa hadda furasha waayaan qaar badan baan soo wadaa qaar badan video waan duubay heeso xataa maamul gobolada iga keentay heese dadka gobolada sida hees waxaan soo wadaa la yiraahdo galmudug oo wiilasha galmudug gabdhaha galmudug aan ku ammaanayo waxaan soo wadaa hees kale la yiraahdo ragga badan boosaaso ku nool keebaan ka bartaa iyadana qof cali iyadana waxaan soo wadaa heeso kale oo jacayl ah marka daadis waa lees wada daba joogaa sanka isku wada hayaan baa leedahay sanka isku wada hayaan ha dacwadayaal fartuun brima ayaa waxay toos aan u wareysanaynaa waxayna noo sheegtay in sanka seeso isku hayaan haddaad moodaysa inay waaye maqnayd waa soo rogaal celisay rugcadaagii meelna uma socoto waayahan kanada idiin fadhidaa waa gartay fartuun ay mararka qaarkood dadku markay kula kaftamayaan waxay dhahaan fartuun waa horaan daawan jiray anigoo yar dadka saas ku dhahaa maxaad ku hor lahayd horta waa hadaaya una waa weydiis waxa tir wixii kugu yaabka badnaa waa iga hoos baxday horta niyahow anigu waa waxyaalaha la yaabay ka mid tahay horta
waan arkayo Soomaalida waxa arkaysa qof baa ku soo wacay wuxuu ku leeyahay anigoo yar baan ku daawan jiray dugsi dhaxaano dhigtaan ku daawan jiray anoo gabar yaroo wiil yaroo ama gabar yaroo wiil jecel ama gabar jecel baan daawan jiray sida alla bay dhahan mogtahay qowda miya isma bedesha miya maxay la qadaa horta waa arkay horta anigu waxaan u arkaa horta aniga asal bafanka waxaan ku bilaabay 17 sano iyo xoogaa malayna 18 markaas ma buuxin gabadheeda 6 bilood bay ahayd wiilkaygana wuxuu ahaa sanad iyo bar markaan fanka bilaabay marka maxaa la yiraahdaa runtii de waa garan kartaa qof inta jira waa qof iska dhalinyara oo yar waaye waa taxadar waad qabiyan aan ku jiray ka bacda adigu 99 2000 marka waxa weeyaan qofka bal dugsiga dhaxa dhiganayo iyo qofka jacaylku hayo maxaynu is dhahnaa waxbas ma dhaana mid kale waxa aaminsanahay seed hees ku dhageysatay hees ba hadaa dhageysanaysid hada qof weyn baa taa Soomaaliya 12 sano jira ugu dambeysay Talyaaniga walaashay keentay Canada imaaday ma dhageysan jirin heesaha 12 markaan jiray iyo waxba waayo waxaan xasuustaa markaan fanka bilaabayay hees cadarka ahayn ay leedahay ayaan hadba xafidsanaa hees dhan Soomaali dhan maanan xafidsanay maanan aqoonin taas waa heesaa cusub xitaa la igu dhibay kadibna waan xafiday waan bartay wix interestan ku ahaa marka qof yari de wax ma dhageystay walaalayaal mid kale waxaan kala xasuusinayaa oo kaga yaabay 2011 kiiba fiidiyoyaasheeda markay daawanayeen waxay dhihi jireen waa 60 jir alla war islaanta 60 jirka marka hadda 2021 baa la maraya dan xarka qaar kale dhahay 60 jir marka halkaas waxa oran la 10 sano ilowdana bal igu soo dara 70 ka yahay laga dhicin waa kartay faxtay hooyo Soomaaliyeed gabar jecel yahay fanaanada maxaad jeclaan lahayd inaad bulshada Soomaaliyeed ku tiraahdid ma laga yaabaa inaad dib ugu noqotid magaaladii Gaalkacyo ku dhalatay oo dadka Soomaaliyeed halka jooga reer Muduga aad entertain garaysan mar kale wallahi waan jeclahay waan ku noqonayaa magaalada Gaalkacyo absolutely markii dambe barnaamijkii waan dhigtay inta kale dhinaca kale waan tagay si fiican baa la soo dhaweeyay ciidankii kontonkii Gaalkacyo ugu horeeyay lagu aasaasay labada dhinacba aniga ayaa furay u heesay markii dambe waxaan ka soo tagay anigoo kaal iska arbaan ku horeeyay kulkulinayo marka waa magaaladan ku dhashay aad baan u jeclahay dhul baan ku leeyahay waan ku noqonayaa reerkayga dhan baa jooga ummadda Soomaaliyeedna waxaan oran lahaa walaalayaalo social mediahan aan sida khaldan runtii aan ka fahanay iska dhaaf waxaan waa taariikh xume iska dhaaf ayaan oran lahaa oo isdaaya oo si kale oo qeyr qabto wax ku raadsada hadii ay taas ay idinka tahay views haday si idinka ahayna ilaahay mataqaana iyadana sidoo kale to Allah idinka midoobay wixii xun dhulkeennana dhul qaniyahan leenahay dhulkeen sidaan horumar u gaar lahayn sidaan dawladdeena u dhisan lahayn aan ka fikirno oo qurbo joog waa dhibaato joog waa is ognahay waxba kuma haynee dalkeena saan ugu noqon lahayn aan isku jino aan is cafino horta aan is cafino haddaan ila waan isnamnay qaar badan waxay dhahnaa ilmaan inala ka xoogay naag waxa arkaysa isdhiiba soo dheer aniga hadda kor waa la xoogay nin waxa arkaysa saasaa la yeelay marka beenti aan sheegan la nagu soo noqonaysa dadkan horta qurbo joogta ah marka waxa weeye horta aan is cafin haddaan annaga is cafin wallaahina waxba aysan hagaagin meeshaan is cafin lahayn waxa moodaa hadda iyo qabiil iyo koow in mataqaana ay imaaday marka walaalayaal aan is cafina anigu oran lahaa si kaliya laba la isku cafiyo dalkeena barnaamij waxaa jira nin dhalinyaro ah wariye ah oo rugcada ah oo weli xaashil dhaho uu wado oo cafis asagoo dhanba waa barnaamij cajaa'ib waxaan jecelnahay Soomaalida dhan ay ka qaybqaadato asagu malahan fikirku keenay ummadda Soomaalida dhan baa iskale hadda Gaalkacyo ka hadlay mid tagay meeluusan tegin malahan qurbo iyo dibadba marka dadkaas oo kale inaan taageerno oo ku daba tukano oo waxa anagu leenahay weeyna is cafiyo wax wanaagsan weey fartuun walaalahay oo ku mahad celinaya 100% aadaan kugu faraxsanahay qof walaalo qaali ay ku tahay Allah ku karaameeyo arooskana waa ogaan doonaa geel badan baan kaa rabnaa hanagala dhuuman haddii la yiraahdo wallaahi hadii fardaa kaa rabnaa wallaahi haddii la yiraahdo aad iyo aad baad u mahadsantahay hagaag daawadayaal intaas waxaan soo gabagabeynaa waraysiga la yeelanayna xidigta Soomaaliyeed Fartuun Axmed Sahal Fartuun Brimo oo khadka stuudiyaha
cali bakari ee canada joogtay isla marhaantaana noogu warramaysay si toosa muddo badan ayay maqnayd xaaladdu waa dhagdhag bay idin leedahay iscafiya oo guryihiina jooga oo dagaalka joojiya wiil 25 jira ayaan diyaar u ahay bay tiri arjigeedu waa diyaar inta aniga igu da'ah iyo inta ka weyn imtixaankii waa ku dhacday inaysa soo lugoynina waxaan jeclahay si hagar la'aan inaa ugu mahad celiyo cali bakari iyo mahad carabow oo maxaa la lahaa lafdhabar u ahaa barnaamijkan mahad carabow waa salaaminaa asaga cali bakari ayaa barnaamijkan duubay adhidgareeyey isku dubariday qurxiyey stuudiyaha lagama sheekayn karo allah karaameeyo ustaadka iyo ehelkiisa iyo qalaabadiisaba sidoo kale waxaan jeclahay inaan u mahad celiyo fanaanka da'da yar Omar Barbar oo asagoo laftigiisu sabab u ahaa inuu maaragtay waxyaalo badan isku xirayo fiilooyin badan allah karaameeyo anigoo cabdixafiid ayna socodsiinayay intaan u kulmayno kaloo kale waxaan idinkaga tegayaa guul iyo gobonnimo waa mahadsantihiin